Asalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiib. Maanta waxaa idin tusi doonaa filim action ee crime ka kooban kaasoo soo baxay 2019kii. Ciwaankiisuna yahay The Informer. Haddaba daabo oo taxadar. Beat waxa uu shaqeeyaa sida sirdoon qarsoon, waxa uuna ka shaqeeyaa qaybta xafiiska FBI-da ee magaalada New York. Waxaana loo diray inuu la shaqeeyo koox gangster Polish ah si uu u keeno cadeymo adag oo lagu soo xiro madaxa gangsterada iyo dambiilayaasha oo lagu magacaabo generaalka. waxa uu Beat ku wargeliyay xaaskiisa iyo gabadhiisa inay safar u baxaan iyaga sababtoo ah mishinkii uu muddada dheer sugayay waa uu bilaabmay. Maamulaha Beat oo ah Erika ayaa tiimkeeda u sheegaysa qorshaha halka Beat uu keeni doono daroogada fentanylka marka uu ka soo iibsado gangiska. Halkaasna ay noqonayso meesha ay iskugu imaan doonaan. Beat waxa uu qoyskiisa ku xiray baqaar, wuxuuna furaha uga tagay xaaskiisa. Wuxuuna u sheegay in haddii 7 saac habeenimo uu imaan waayo habeenka xiga ay meesha ka tagaan. Beat waxa uu Erika kula kulmay musqul burbursan. Waxay siisay taleefan si uu iyada ula xiriiro iyo fiilo ay u sheegtay inuu xirto si ay u dhageystaan gangistrada. Hadday xaaladdu xumaatana uu isticmaalo erey sarbeeb ah kaasoo ah sigaar ayaan u baahanahay ayna markaas u soo gurman doonaan isaga. Stazig iyo Beat waxay markaan salaamayaan diblomaasi wata boorsooyin daroogada fentanylka ah. Intaa kadib waxay daroogadii geliyeen boorso kale waxayna diblomaasigii ku dejiyeen hoteelka. Stazig waxa uu ka degay baabuurka si uu dhalo khamri ah ugu soo iibiyo generaalka oo ah adeerkiisa. waxa uuna go'aansaday inuu lacag kaash ah u geeyo adeerkiis halkii uu daroogada fentanylka u geeni lahaa. Wuxuuna u sheegay Beat in laga hor iibsaday daroogada lana helay qof kale oo iibsada. Laakiin Beat waxba uguma jawaabin arrintan si aanu loo ogaanin inuu sirdoon yahay qorshaha FBI-dana uusan u fashilmin. Erikana waa ay soo daba kacday iyaga. Markii ay baar yimaadeen ninkii iibsanaya daroogada aad buu u naxsanaa. Wuxuuna sheegay inuusan haysan lacag ku filan oo uu ku iibsado dhammaan 6 rodol ama bond ee daroogada, laakiin uu hadda iibsanayo 3 rodol ama bond halka 3 kalena oo lacagtooda u dhiganto $85,000 oo 2 saacadood gudahood ku bixin doono. Aad ayuu arrintan uga xanaaqay Stazig. Beat ayaa dejiyay wuxuuna Beat bilaabay inuu ninkii weydiiyo su'aalo ku saabsan sida uu $85,000 ku keeni doono 2 saacadood gudahood. Waa uuna ka shakiyay isaga. Markii uu Stazig ka yara fogaaday iyaga si uu taleefan uga hadlo ayaa Beat wuxuu u sheegay ninkii inuu beecan ka baxo si uu isaga u noqdo qofka iibsanaya daroogada haddii kalena uu ku eedeyn doono inuu booliis yahay. Laakiin iibsaduhu uu diiday inuu ka baxo beeca. Beat ninkii ayuu kala tuuray isagoo dhahaya meeshan ka tag. Laakiin ninkii biskoolad ayuu soo baxsaday iyo calaamad muujinaysa inuu booliis yahay. Stazigna ninkii ayuu gadaal ka soo togtay. Beat wuu rumaysan waayay in nin booliis ah la dilay. Wuxuuna isticmaalay ereygii afgarashada isagoo dhahaya waxaan u baahanahay sigaar. Laakiin Erika iyo tiimkeedu ma aysan u imaan, balse waa ay ag mareen iyagoo iska indhatiraya Beat. Kadibna Beat iyo gangistradii waxay bac ku xireen meedkii si ay u qariyaan. Muuqaalka qaybtiisa xigta waxaynu aragnaa Beat iyo gangistrada oo jooga warshad hilib ah. waxaana Beat lagu casuumay inuu la kulmo generaalka. Wuxuu generaalka yiri mar haddii booliis lagu dhex dilay New York waa inaynu ka falcelinaa arrintan si ay booliiska nooga haraan anaga. Inkastoo Stazig uu ahaa qofka dilay booliiska, laakiin generaalku wuxuu yiri Stazig wuxuu badbaadiyay naftaada, naftiisana khatar ayuu geliyay. Haddaba si aad ugu guddo deyntiisa waa inaad 5 sano xabsiga joogtaa si aad anaga noogu shaqaysid oo aadna daroogada halkaas ku kala wareejisid. Si uu generaalka u sii cabsi geliyo Beat wuxuu u sheegay inuu ka fikiro qoyskiisa oo hadda iyaga gacantooda ku jira. Beat iyo qoyskiisa waxaa lagu soo celiyay gurigooda. Wuxuuna Beat la xiriiray Erika waxayna u sheegtay in hadaatay ay u imaani weysay sabab la xiriira qorshaha oo fashilmi gaaray. Isla markiiba taleefanka ayuu ku jaray. waxa uu sidoo kale ka cadhooday xaaskiisa Sofia maadaama uu horey ugu sheegay inaysan ka tagin guriga, laakiin durbadiiba waa ay heshiiyeen. Booliisku waxay heleen meedkii marxuumka. Grenis oo ah dambi baare waxay saaxiibo dhow ahaayeen ninka la dilay. Wuxuuna isku dayay inuu ogaado dambiilaha. Waxa uuna si degdeg ah u ogaaday in dhimashada saaxiibkiis ay ka dambeeyaan koox burcad Polish ah. waxa uu helay muuqaal muujinaya Beat oo ka soo baxaya goobta dilka ka dhacay. Isaga ayuuna u qaatay inuu ka dambeeyay dilkan. Beat, Erika iyo booskeeda Montgomery way kulmeen waxayna u sheegeen Beat inuu dhibaato weyn ku jiro. Waxayna sheegeen inay qarin doonaan, laakiin ay ka rabaan inuu sii dabagalo qorshaha generaalka loona diro xabsiga. Haddii uu Beat xabsiga ka soo aruuriyo cadeymo ku saabsan shabakadaha gangistarada ee daroogada ku dhex iibiya xabsiga, waxa uu isagu noqon doonaa mid xor ah. Si kastaba ha ahaatee wuxuu booskii yiri haddii aad arrintan diiddo waxaan generaalka u soo bandhigi doonaa inaad tahay sirdoon qarsoon. Haddii aad generaalka iyo gangistarada ka badbaadidna waxaa ku xiri doona booliiska sababtoo ah waxaad dishay booliis qarsoon. Markii uu ku soo noqday guriga, Beat wuxuu sanduuqa dhex geliyay codadkii uu hadda sida qarsoodiga ah uga duubay Erika iyo booskeeda. Subaxdii markii la gaaray, Stazig ayaa guriga soo booqday una dhiibay Beat xoogaa daroogada fentanylka ah si uu xabsiga u geeyo. Beat wuxuu Sofia u sheegay shaqada cusub oo ay u direen FBI-da. Maalintaas oo dhanna wuxuu waqti la qaatay gabadhiisa isagoona warqad ku calaamadeeyay naqshada uu xabsiga u dhisan yahay. Markii uu guriga yimid, gangistradii Polishka ah iyo generaalka ayaa soo booqday gurigiisa. waxa uu generaalka Beat u sheegay inuusan caruur lahayn, sidaas darteedna uu cunugtiisa u naxo oo uuna shaqadan xabsiga ay ugu dirayaan oo si fiican ugu qabto.
grenis waxa uu kor kala socday guriga Pete waxuuna haweeneydii la shaqaynaysay ku wargeliyey in generaalka uu hadda ka tagay guriga Pete maalintii xigtay Pete si loo xiro wuxuu iska dhigay mid waxyeelo u geysanaya xaaskiisa halka iyaduna uu u sheegay inay booliiska wacdo grenisna wuxuu arkayay Pete oo ay booliiska xirayaan xabsiga dhexdiisa Pete waxaa si diiran xabsiga ugu soo dhaweeyay taliyaha xabsiga oo ah nin musuqmaasuq badan waxaana la tusiyey sariirtiisii waxaana sariirta ku hareereysnaay rag African American ah laakiin mid ka mid ah maxaabiista ayaa laaluushay taliyaha si loo baneeyo laba sariirood oo kale si aan Pete loo dhibaateen oo ay u ilaaliyaan markii habeenkii la soo kiciyey maxaabiista taliya Warden ayaa u yimid Pete sida ay ka codsatay Erika waxa uu Pete ku qoray qaybta nadaafadda Pete waxay isbarteen qaar ka mid ah xubnihii gaangistarada generaalka ay xabsiga ku jiray waxaana la siiyey mindi yar si uu nafsadiisa ku difaaco grenis waxa uu booqday Erika wuxuuna weydiiyey macluumaad ku saabsan Pete laakiin waxba maysan u sheegin Montgomery ayaa u yimid si uu u xaliyo isagoona sheegay inaysan wax xiriir ah la lahayn Pete wuxuuna grenis soo bandhigay sawirada Pete iyo Erika oo ay qaaday kaamirada CCTV-ga maalintii saaxiibkiis la dilayay waxa uu sidoo kale sheegay in haddii ay cadaato in FBI-du ay xiriir la leedahay Pete uu dagaal ka dhex qarxi doono FBI-da iyo booliiska Sofia sida uu horay ugu sheegay baseegeeda waxay daroogadii ku dhex riday qooley dhimatay waxayna iyadoo isticmaalaysa daroon ay qooleydii ku dejisay saqafka kore ee xabsiga subaxdii Pete markii uu nadiifinayay saqafka xabsiga ayuu helay daroogadii qooleyda la soo dhex geliyey grenis wuxuu Sofia ku booqday goobteeda shaqada si uu u helo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Pete sababtoo ah isagu ma hubo in Pete uu yahay dilaaga Sofia waxay u sheegtay inaysan caawinaynin isaga oo uuna ka hortago grenis waa uu ka soo hortagay isagoona u reebay kaarka nambarkiisa si ay ula soo xiriirto haddii ay go'aankeeda bedasho kadib grenis waxa uu la xiriiray Pete isaga oo u sii maraya mid ka mid ah sirdoonadiisa xabsiga uga shaqeeya isagoona u sheegay inaysan mar walba agjoogi doonin kooxdiisa gaangistarada ah haddii uu rabana inuu noolaado ay keliya tahay inuu xog ka siiyo dilka askariga booliiska taliyihii musuqmaasuq badnaa ayaa Pete u soo kaxeeyey dhanka nin madow ah oo lagu magacaabo Phelps kaasoo hogaamiye u ah koox kale oo gaangistaro ah ninkan ayaa ah ninka maamula dhammaan ganacsiga daroogada ee xabsiga dhexdiisa wuxuuna sheegay in Pete uu caqabad ku noqday ayaga Phelps iyo raggiisii waxay isku dayeen inay dilaan Pete ilaa uu caddeeyo inuu yahay sirdoon qarsoon oo FBI-da u shaqeeya oo uuna doonayo inuu dhul kala jaro generaalka waa la sii daayay Pete waxayna gaangistaradii aqbaleen inay Pete ka caawiyaan macluumaadka xubnaha gaangistarada generaalka dhanka kale xafiiska FBI-da Montgomery wuxuu amar ku siiyey Erika in la dilo Pete lana joojiyo dhammaan howlgalkan oo dhan sababtoo ah grenis ayaa ku raad jooga iyaga halka Pete-na uu yahay sirdoon aan rasmi ahayn wuxuuna u sheegay haddii ay booliiska ogaadaan waxa ka dhacay goobtii lagu toogtay askariga booliiska aysan keliya iyadu shaqadeedu waayi doonin laakiin ay nolosheedana halis geli doonto wuxuuna ugu goodiyey haddii aysan u hoggaansamin amarkiisa ay iyadu geli doonto beddelkiisa habeenkii Pete waxa uu soo baxay si uu u kaadsho waxaana soo ag istaagay mid ka mid ah raggii Phelps waxa uuna siiyey liiska magacyada shabakada maamusha daroogada xabsiga dhexdiisa kadib waxa uu Pete wacay Erika oo u sheegay inuu ogaaday dhammaan xubnaha shabakada generaalka wuxuuna ka codsaday inay dibadda u soo saarto sababtoo ah khatar ayuu ku jiraa laakiin Erika ma aysan awoodin inay taas samayso sababtoo ah mar hore ayaa looga digay Pete waxa uu isla markiiba wacay Sofia waxa uuna u sheegay in cajaladihii ku duubnaa codkii isaga iyo Erika ay ku sheekaysteen ay u gacan geliso grenis oo ayna magaalada isaga tagto Erika waxay u tagtay qareenkii generaalka waxayna u gudbisay xogta ku saabsan in Pete uu yahay sirdoon qarsoon oo FBI-da la shaqeeyo isaguna wuxuu xogtii la sii wadaagay gaangistaradii generaalka dabadeed waxay Erika la kulantay Sofia oo ay ka qaadatay cajaladihii sababtoo ah FBI-du waxay dhagaysanayeen koolkii ay Pete iyo Sofia ku wada hadlayeen Erika aad ay ugu xumeed waxa ay samaysay waxayna dib u dhagaystay cajaladihii iyadoona dhagaysatay hadalkeedii ahaa inay difaaci doonto Sofia iyo gabadha inta uu Pete xabsiga ku jiro gudaha xabsiga mid ka mid ah raggii Phelps ayaa u tilmaamay in la dili rabo isaga lana gubi rabo wuxuu Pete isu diyaariyey dagaal laakiin wax uu waayay mindidiisii yarayd intii uu raadinayay mindida ayaa waxaa soo weeraray mid ka mid ah gaangistaradii boolishka Pete wuxuu awood u yeeshay inuu ka adkaado oo uu ceejiyo ninkii intaa kadib waxay waardiyaasha kaamirada ka arkeen Pete oo meyd jiidaya markii taliyaha musuqmaasuq badna uu soo aaday goobta ay wax ka dhaceen Pete ayaa ku dhagay oo afduubtay wuxuuna dalbaday inuu doonayo inuu la hadlo saxaafadda iyo xaaskiisa dabadeedna wuxuu taliyihii ka dhaawacay dhegta agteeda wuxuuna la soo aaday dhinaca taawar cidlo ah waana uu jeebadeeyey wuxuu soo qabsaday gacankii taliyaha si uu u ogaado in dalabkiisa la fulinayo iyo in kale wuxuuna calaamadeeyey xaglaha daaqadda laga soo toogan karo maxaa yeelay isaga laftiisa ayaa horay u ahaa shiishyahan ama snaaber ka tirsan ciidanka Mareykanka dhanka kale Stasik wuxuu u yimid inuu dhibaateeyo qoyska Pete xaaska Pete-na markaas ayay taleefan kula hadlaysay grenis wax yar kadib grenis waxa uu yimid guriga Pete wuxuuna dilay ninkii la socday Stasik waxa uuna u soo dhaqaaqay dhinaca jaranjarada waxaana laga toogtay lugta dibna uma uusan furin xabadda maadaama uu Stasik isku dhajiyey gabadha Pete intii uu ka labalabeynayay ridida xabadda ayaa xabad kale lagu soo riday waxaana ka dhacay biskooladii
markii uu Stasig u soo dhawaaday inuu dilo Grenis, Sofia ayaa dhabarka ka toogatay Stasig, laakiin iyaduna garabka ayaa laga dhaawacay. mar kale xabsiga raggii shiishahanadii iyo Montgomery ayaa yimid goobta, wuxuuna Montgomery u sheegay shiishahanadii inay aragtida koowaad ku toogtaan Pete. Warden ayaa meesha jooga si uu u fuliyo dalabaadka Pete. Pete waxa uu wacay xaaskiisa oo u sheegay inuu xaaladan ka bixi doono. Montgomery wuxuu jaray koolkoodii. Pete waxa uu istusay shiishahanadii isagoona markaas taliyaha dharka ka badashtay. dabadeed waxa uu soo kiciyay taliyihii, wuxuuna u ogolaaday inuu ceejiyo isaga, laakiin taliyaha war uma hayo arrinta shiishahanada. intii la ceejinayay Pete ayaa mar kale wuxuu istusay raggii shiishahanada ahaa, wuxuuna mid ka mid ah shiishahanadii xabadii uu soo riday ee ku dhacday mid ka mid ah haamanka ay ku jiraan carbon dioxide. Pete waxa uu suurta gashay inuu ka dhunto qaraxa haamahan, sidaasna waxaa ku gubtay taliyihii. markay Eray ka timid goobta waxay aragtay xabsiga oo ololaya. Montgomeryna waxa uu ku wargeliyey in hawsha ay dhamaatay. markay dabdamiyaashu soo qaadeen Pete oo ay ambalaas ka saareen isagoo xiran direyskii taliyaha, ayay aqoonsatay wayna raacday. wax walba oo dhacay kadib waxay markan doonaysaa inay caawiso Pete, waxayna iska dhigtay in Pete uu afduubanayo qof walba, waxayna siisay warqad iyo taleefan, wuuna cararay. muddo kadib Erika waxay Montgomery kula kulantay Don, waxayna u sheegtay inay garanayso meesha uu joogo Pete. wuxuu amray inay disho isaga, laakiin iyadu waxay markaan dejisay qorshe lagu soo xirayo booska, maadaama Erika ay wadatay fiilo, booliiskana ay dhagaysanayeen. waxayna booliiska u sheegtay macluumaad ku saabsan musuqmaasuqa Montgomery, sidaasna ayaa lagu xiray isaga. filimka qaybtiisa ugu dambaysana waxaynu aragnaa Pete oo doonaya inuu la kulmo qoyskiisa, laakiin Erika markay aragtay isaga waa ay u baaqday, iyadoona u muujisay inay meesha joogaan sirdoono badan oo qarsoon. Grenis ayaa u yimid Pete, wuxuuna siiyey dukumentiyo feeg ah oo ay u soo dirtay Erika, isagoona u sheegay inuu dhunto in muddo ah ilaa ay xaaladdu ka hagaagayso. ugu dambeynna isagoo Sofia eegaya ayuu meesha ka tagay oo u dhuntay. intaasna ayuu muuqaalkan ku eg yahay. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.